dawadayaal weli waxaa sii socota tirinta codadka natiijooyinkii doorashooyinkii isku sidkanaa ee 13 Noofambar shacabka Somaliland ay u dareereen si ay u soo doortaan madaxweynaha shanta sano ee soo socda hagi doona talada dalka Somaliland iyo weliba saddexda xisbi qaran ee wadanku yeelan doona 10 sano ee soo socota. codadkii natiijada doorashada ee shacabka ku dhaqan gobolka Sanaag ay ka dhiibteen doorashooyinkii 13 Noofambar oo guud ahaan la soo gabagabeeyay tirintoodii ayaa fiidkii caawa waxay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee Cigaal International iyadoo komishaneer Faadumo oo ka tirsan 7 xubnood ee komishanka doorashooyinka Somaliland isla markaasina u qaabilsanayd gobolka Sanaag ay halkaasi ka soo daabushay sanaaduuqdii codbixinta doorashooyinka ee gobolka Sanaag oo halkaasi lagu soo dhameeyay tirintoodii heer gobol isla markaasina ay soo gaadheen magaalada caasimadda ee Hargeysa iyo weliba xarunta dhexe ee komishanka doorashooyinka Somaliland. ilaa hadda iyaguna waxa la wadaa oo gabagaba ku dhow tirinta codadka natiijada doorashada ee gobolada Maroodijeex, Saaxil, Togdheer iyo weliba Awdal oo si habsami leh uga socda guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Hargeysa, Burco, Berbera iyo weliba Boorama. gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf iyo mas'uuliyiin horkacaya ayaa gegida diyaaradaha ee Cigaal International Airport waxa ay ku soo dhaweeyeen komishaneer Faadumo iyo weliba sanaaduuqdii codbixinta doorashooyinka ee gobolka Sanaag oo la soo gabagabeeyay kuwaasi oo caawa fiidkii ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport isla markaasina loo soo galbiyay xarunta dhexe ee komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland. wixii wararka ee ka soo kordha tirinta natiijada codbixinta doorashooyinka isku sidkanaa ee aqalka madaxtooyada iyo weliba tan xisbiyada ee 13 Noofambar guud ahaan dalka looga dareeray codbixinta si shacabka Somaliland ay soo doortaan madaxweynaha talada dalka hagi doona shanta sano ee soo socda iyo weliba xisbiyada qaranka ee saddexda ah ee 10 sano ee soo socda ay yeelan doonaan Somaliland ayaa shacabka Somaliland ay u dhagtaagayaan cidda ku guuleysan doonta jagada madaxweynaha iyo weliba saddexda xisbi qaran ee noqon doona xisbiyada sharciga ah ee 10 sano ee soo socda ka howlgeli doona guud ahaan deegaanada Somaliland. wixii wararka ee soo kordha isha ku hay halkan oo telefishinka RTN xaruntiisa Hargeysa. Maxamed Cumar Daariq, warbaahinta RTN Hargeysa.